Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet, don't know, but it would be a serious mistake. weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Juba. Dowladda Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa soo saaray warqad wada jir ah oo ay ku sheegeen in dhammaantood ay ku diideen eedamaha Ruushka ee ah in Ukraine ay isku diyaarinayso inay u isticmaasho wadankooda wasaqda nuclear-ka. Arrintan ayaa imaanaysa isbuucii la soo dhaafay kadib markii wasiirka difaaca dalka Ruushka uu qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Faransa iyo Turkiya. afartan wadan ayaa ah afarta wadan ee ugu waaweyn gaashaanbuurta NATO ayuu wasiirka difaaca dalka Ruushka uu sheegay in Ukraine ay doonayso in ay u isticmaasho wadankooda wasaqda nuclear-ka si ay uga eedeyso dalka Ruushka isticmaalka nuclear-ka. Wadamada reer galbeedka ayaa beeniyay eedeynta Ruushka, balse taasi la yaab ma lahan waayo horey ayay ugu eedeeyeen in Ruushku uu isticmaali rabo wax loogu yeero tactical nuclear-ka. intaasi waxaa dheer reer galbeedka ayaa horey u taageeray jabhadda Jaysul Islaami ee ka dagaalanta dalka Suuriya ayagoo markaa ka caawiyay in jabhaddu isticmaasho chemical si ay ugu eedeeyaan dawladda Bashar al-Assad. tani ayaa u eg in reer galbeedku uu rabo inuu maro isla wadadii Suuriya kadibna uu dusha ka saaro dalka Russia si uu ugu harkeeno wadamada caalamka. dowladda Ruushka ayaa maalintii Talaadada ahayd u sheegtay qaramada midoobay arrinta Ukraine ay ku doonayso inay u isticmaasho dirty bomb oo ah wasaqda nuclear-ka. kumandaha mar dhow loo magacaabay inuu hogaamiyo ciidamada Ruushka ayaa sheegay in dawladda Ruushka ay bilowday ka daabuleynta shacabka gobolada Kherson, Luhansk iyo Donetsk kadib markii ciidamada Ukraine ay qarxiyeen power station-ka korontada gobolka Kherson, iyadoo sidoo kale cabsida laga qabo in ciidamada Ukraine ay u isticmaalaan shacabkaasi wasaqda nuclear-ka. Ruushka waxa uu sameeyay dowlatus military ah oo uu ku muujinayo nuclear-kiisa iyadoo madaxweyne Joe Biden uu kaga digay Vladimir Putin inuu isticmaalo hubka nuclear-ka oo noqon doono qalad aad u culus. laba qof ayaa ku dhimatay, afarna way ku dhaawacmeen gantaalo uu Ruushka ku weeraray magaalada Dnipro fiidnimadii Talaadada ahayd sida uu maamulka deegaanka ku sheegay Telegram-ka. ciidamada Ruushka waxay qaadeen 5 weerar oo gantaalo ah ilaa iyo 30 weerar oo xagga cirka ah iyo in ka badan 100 weerar oo gantaalo ah sida uu sheegay shaqaalaha guud ee Ukraine. dhanka kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka digay in 10 sano ee soo socda uu noqon doono kii ugu adkaa ee caalamka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. asagoo hadal ka jeedinayay caasimadda dalka Ruushka ee Moscow ayuu waxa uu difaacay dagaalka ay kula jiraan reer galbeedka, isagoo sidoo kale sheegay in dhaqaalaha Ruushka uu ka badbaaday weerarada kaga yimaada reer galbeedka. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ra'iisul wasaarihii iscasiray ee dalka Ingiriiska ku sheegay in ay tahay gabar madax yar oo iska halaaqday kadib markii ay sheegtay in laga yaabo in wadamada reer galbeedku ay isticmaalaan nuclear-ka.